bismillaahi raxmaani raxiim. Ma doonaysaa inaad baabi'iso xayrta ama faadka ku jira caloosha ama aad sifayso dhiigaaga? haddii jawaabtaadu haa tahay, waa inaad cabtaa subax waliba haddii ilaahay idmo sanjabiil orgaaniga iyo liin dhanaan. maadaama subaxdii mararka qaar aanaa waqti u helin inaan karkarino ama aan iskool ama shaqo kale loo ordayo, waxaad samayn karaysaa sanjabiisha. hadda waan fiiqay, waatanaa way fiiqan tahay, qofkii baan ka saaray. liin dhanaantan haddaad rabtid waad ku miiri kartaa markay qabowdo. waan karkarinayaa marka hore sanjabiisha, liin dhanaantan baan ku miirayaa. ama liin dhanaanta waxaad samayn kartaa, waxaad ku miiri kartaa subaxdii markaad qaadanayso ama aad cabayso oo kale. marka hadda sanjabiishu way noo fiiqan tahay, qofka waan ka fiiqay, waan karkarinayaa. digsigaasaan ku karkarinayaa haddii ilaahay idmo. kabacdi sanjabiishu markay karkarto waan burburinayaa oo ay aada u bislaato. waxaan ka miiranayaa biyaha waxaan ku miirayaa haddii ilaahay idmo baastamirkan waan ku miirayaa. markay karkaraan sanjabiishu ay bislaato, waxay kuu fududeynaysaa subaxdii inaad subax walba cabto. haddaad wado isbuucii bishii 3 jeer haddaad isticmaasho, waxaan rajeynayaa inaad isbedel badan aad ka dareemi doonto. sanjabiishu waxyaabo badan bay daawo u tahay. waxay daawo u tahay caafimaadka jirka bili-aadanka oo dhan. waxay caafimaad u tahay dhiigga inay sifayso kaleetay kaa caawin kartaa. inaad seexato, inay tinta maxaan ku dhahay tadaadanaysa ay kaa istaagto, xayrta inay jarto. haddaad sida loogu talagalay aad joogta aad u isticmaasho subax waliba liin dhanaantaas iyo malabka orgaaniga ah, haddii ilaahay idmo intaasaan isticmaali doonaa. marka waxaan sugaynaa hadda sanjabiishu inta ay noo bislaanayso, kabacdina waan miiran doonaa. sanjabiishu waan diyaariyey wataaye. markay kartay waxaan ku shiiday makiinad, halkaa baan ku shubay. subax walba ilama aha inuu qofku hadduu shaqo u ordayo ama ilmo uu iskool u diyaarinayo ama asagoo iskool u aadayo inuu diyaarsan karayo subax walba sanjabiishi. subax walba sanjabiishi inaa cabnana aada bay u wanaagsan tahay. hal qaadoo malabaad ku darsanaysa ee kaloogiska ah. qashinkii aan ka saaray wakaasaa sanjabiishii saasay noqotay. marka haddii ilaahay idmo subax walba markaad soo kacdo adoon stress iyo waxba iskilin waad soo baxsanaysaa. haddaad xitaa daacsan tahay meesha shaqada ama iskoolka oo kalead ku kululeysan kartaa, caagadahaasad ku shubanaysaa haddii ilaahay idmo. liintaada hor aad u qaadanaysaa, haddaad rabto dad ku meeran kartaa. waxaa soo haray qobkii aan ka saaray sanjabiisha markaan fiiqayay. sanjabiishu kale waxay ahayd organic. qobkii aan ka saaray markaa qofka waxaan rabaa marka inaan xabada basal gaduuda ah iyo tuun 2 xabo kale iyo olive oil aan ku shiido haddii ilaahay idmo, iyo jaxiro liin dhanaan. kabacdi aan madaxa ku mayrto. sanjabiishu iyo basasha, tuunta, liin dhanaanta waxyaalaha ayo idil waxay madaxa ka baabi'iyaan ama ay dilaan agoolka. marka sanjabiishu wataa dhiigga ay sifaynaysaa, hurdada ay kaa caawinaysaa inaad hurdo hesho. waxay baabi'inaysaa faadka jirkaaga ku jiro oo dhan, neerfaha haddaad neerfa tahay, lafa xanuunka, wax waliba oo cudurra sanjabiishu daawo u tahay haddii ilaahay kugu caafiyo.